الله تعالى وبركاته ولا عليه قال قاسو دواad meel kasta duuda calaadka joogtaan maanta waxaan idinka faa'iideynaa alaab yar oo wajiga marsanaya idin la wadaagaya insha Allah bidmillaah karim halkan waxa yaala malqacad iyo baaquli yar ama madiibad yar halkan waxa iigu jira xulbad shiidan ma garateen adii haddaad rabto waa shiidan kartaan iyadoo saasaan soo iibsaday insha Allah bidmillaah karim marka Soomaaliya laga keenay aniga iyadoo saasa waxaan yaala olive oil iyo caanahaas haye marka waxaan sameysanaynaa hal malqacad oo caanahan halkan ku shubaa malqacada mugeeda caanaha caadiga iyo malqacada barkeeda oo inta aniga hadda igu filan sameysanaya malqacada haafkeeda oo xulbada shiidana waxaan kala ku darsanayaa malqacada haafkeeda oo saliid olive oil sababta ugu darsanayaana wajigayga waxa waaye waa qalayl marka haduu wajigaaga uu yahay uu dufan leeyahay oo aanu ahayn aanu qalayl ahayn waa iska deynaysaa saliida haduu wajigaagu qalayl yahay waa ku darsanaysaa insha Allah bidmillaah karim aan wajigayga skinkayga waa qalayl marka saasaan ugu darsanayaa haduu ilaahay ka dhigo malqacad caana malqacad haafkeedo saliidaasa iyo malqacad haafkeedo xulbada aan isku darsanay insha Allah waan isku soo qasaa waa arki doontiin soo ku soo baxay walaalahayga qaarga waa taas aasaasan isugu soo qasay waa u jeedin inta yar weeye waxayna daadaadiyo marrabi inta wajigay ku filan baan sameystay qof walba inta daadaadiga gacmaha iyo meelaha marsanaysa waad badsanaysaa insha Allah bidmillaah karim marka haduu wajigaagu uu yahay dry oil uu yahay waad ku darsanaysaa saliida hadii kalena waad iska deynaysaa insha Allah bidmillaah karim xulbada aad bay wajiga u qurxisaa aad iyo aad bay u fiican tahay madmadowga iyo waxaasna way baabiisaa insha Allah bidmillaah karim ka faa'iideysta walaalahayga qaaliga